xanuunka dadka qurbaha jooga haya waan ogahay dad badan baa guuri waayo jeclaa inay guuraan laakiin waxaan rabnaa inaan uga dhigno si fudud inay dadkii lacagtii qurbaha laga sameyn waayay inay Afrika jirtaan Afrika ka sameeyaan ayadoo aysan dareemeyn nidaamka ama paymentiga sida ay ku Viewpoint Homes ay ku sameeyso ma financing baa ku sameeysaa ma hafta nidaamkan uu naqaan bay ku sameeysaa mise lacagtii oo cash weeyaan inuu macaamilku wada shubo waxay tireedooyin lacagtu ma kuna dooran hadda haystaa si wanaagsan hadda tobanka kuna dooran bixiyo seebo guriga igu u suurto gelinaya waxaan waxa ugu horeeya horta tobanka kuna dooran dhig guriga gadatay waxa 140 kuna dollar si wanaagsan 3 sano ka bacdi lacagtii way dhamaysay maamadii dib bay noo soo wacday waxay tiri waxaan ka fikiray 20 sano hore wixii aan qaban jiray بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا نورة بربركيجا وحا فردية عبد القادر حسين أحمد وحنريد قصة سلامنا سيارة واشنطن رنهانتي فرحد أي إيتهاي عبد القادر إن أكو بسودوي سيارة واشنطن وحنقول لي هاي بسودوي سيارة واشنطن أدبا ما سنتهاي نورو أنا جالس سيدو كلا يفرحد يقول تهاي إن نكو كلا إنه مجال سيارة واشنطن وأنا هالكان معلومي يقول دم بي أكو سبنا عبد القادر ومد كميد كان عساتدا ku dhaqan dalka Kenya gaar ahaan Nairobi عبد القادر waxa uu gacanta ku haya mashaariic aad u tiro badan oo ay kamid tahay Viewpoint Homes Viewpoint Homes waa mid kamid ah shirkadaha ugu facaweyn leh ee ka hirgalay Kenya Nairobi Viewpoint Homes waxa ay mashaariic tiro badan ka dhex wada magaaladaasi iyo dhismayaal casri ah عبد القادر ومضح شركة داسي سيدا أينو وذا أكسون هيبة بريهان دم بواحد مدة قرب شوكتي إني آذي قد يقرقنيان ويكجوريان قربه هذا ساعته وحي آذي بعد جوبيان أو آذو دنينيان إني هلان ديجا مكو هبون أو يكجمار مكران قربه يبرفكي ديجا مداسي أو له أما كو قلبيسن دمان أذيجيدي أساسي أها اللي جه لي كره ديجان بلحسن أو قرح بدن. عبد القادر ما أنت وحى وديارو يهاي أما وتشعلستي إنه وربحين أو كوبان وينجسيو مشاريع ذات هذا بدن له ما دام إن بدن وكسر دحت شري أرمهن ريال استيت كا إن وربحين أو كوبان وينجسيو عبد القادر وحن كوكسر دويني مرة بعد سيارة واشنطن مع ميش إن كحرن Viewpoint Homes أنت هنا قريه كإيبين in badan guriyo badan waan iibin doonaa caawa waxa laga yaabaa macaamiil fara badan ama qurbo joog fara badan oo jaha wareersan oo meeshii ay u guuri lahaayeen wali midmadu badan ka jiro inay jiraan waxaanu ahro u aragnay in qurbo joogto qaar kamid ay u guuraan Egypt qaarkood kamid ay u guuraan Malaysia qaarkoodna ay u guuraan Turkiga habase hata caawa waxay noo saaran miiska waa Kenya guud ahaan maxaad dhihi kartaa Kenya waa loo guuri karaa oo macaamiishan way ku xulan karaan inay u guuraan oo hantidooda iyo ubadkooda iyo qoysaskooda ay jecel yihiin way ku aamini karaan maxay kaga duwan tahay maxay faa'iido u leedahay ayna oran karnaa aad iyo aad waa mahadsan tahay waa su'aal runtii aad iyo aad qiimo u leh waana kaaga mahadcelinayaa inaad wareysigan igu weydiisid wadanka Kenya marka koobaad wuxuu daris leeyahay wadankeena Soomaaliya haddii diyaarada ay noqoto iyo haddii ay noqoto gaari labadaba Soomaaliya waa lagu gadaa marka wadankaasi cimil ahaan iyo deegaan ahaanba wadankeenu ku dhow yahay marka siyaalo badan ayay kaga duwanahay wadamada kale oo fogfog ama Turkiga ha noqoto ama Masar ha noqoto marka waxaan isleeyahay Kenya waa Soomaaliya oo aad iyo aad maaragtay wax yar uga duwan laakiin wadankaasi wadan uu darisnahay marka waxaan isleeyahay Soomaalida deegaanka iyo dariska markay noqoto Kenya muhiima waa tahay waxaan rajaynayaa in macaamiisha su'aashaasi ay aad iyo aad uga bogteen habase ahaatee waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan Viewpoint Homes waxay kaga duwan tahay shirkadaha kale ee kula loolamaya suuqa Nairobi Kenya hadday noqoto xagga quality-ga hadday noqoto muddada ay guryaha ay ku soo gabagabayso hadday noqoto qiimaha hadday noqoto desaynada maxay oran karnaa
aad baa umahadsantahay waa su-aal aad iyo aad runtii aan sugayey inaad i weydiisid waa su-aal qof kastoo ganacsi ku jiran in la weydiiyo uu runtii aad u jecel yahay kow waxaan jeclaan lahaa inaan in yaro introduction ka sameeyo shirkadda Viewpoint Homes Nuroy Viewpoint Homes waxaa la aasaasay 2022 saa marar badan waraysiyo ku sheegay Viewpoint Homes imika waxay gacanta ku haysaa ilaa iyo 6 projecti ayay wadaa labo mid hadda ayuu dhamaanayaa oo waa la furayaa haddii lahaa bishan July dhexdeeda haddii lahaa idmo wuxuu ku yaalaa xaafadda Islii mar waa la yiraahdaa magacaan gabdhaha Soomaaliyeed ugu magac daray sidoo kale waxaa la dhahaa kan kale oo ku xiga waxaa la dhahaa Sitara isagana wuxuu marayaa dabaq 12aad xaafadda Backland ku yaalaa Sitara 2 baa jirto hadda iskaafeeshkeeda dhamaaday ayadana insha Allah Backland ku taala Sumaya jirta oo iyaduna xaafadda Islii ku taala oo hadda ground floorkii soo gaartay sidoo kale shirkaddu waxay markii ugu horeysay ay tahay shirkaddii samaysay ugu horeysay inay iskuul dhisto waxaanu sameynay iskuul ilaa iyo 7 dabaq ka kooban iskuulkaas oo arrintii jeclaan kaga faa'iideysto wareysiga dadka reer Backland kuwa Islii kuwa South Sea iyo meel walba ay naga soo gaari karaanba iskuul aad iyo aad u tayo sareeya primary ilaa iyo high schoolna leh Kenya system iyo British system labadaba iskuulku leeyahay haddaan u soo noqon su'aashaada qaybaha badnayd Viewpoint Homes maxay kaga duwan tahay kamariyada badan oo loola tamaya horta kow Viewpoint Homes waxay kaga duwan tahay waxaanu ku tartamaynaa ama aanu macaamiishayada runtii u promise garaynay waa shayga ugu horeeya inaanu u doorno marka hore locations aad iyo aad u qiimo badan waa gartay locationskaas oo ah runtii dadku waxay aad raadiyaan waa lighting guryaha qayb kamid ah waxaad arkaysaa in gurigu inuu habeen yahay moodaysa iyadoo maalin duhurkii la marayo laakiin annaga mar walba waxaanu raadinaa guryo lighting leh si maaragtay guryaha corner blocka la yiraahdo oo dhinac walba muraayada iyo daaqadu u lahaan karto ama at least laba face gadaal iyo horay ay mar walba balakoonada guryaha ay saarnaanayaan si view iyo lighting loo heli doono insha Allah bilkariim ma aha kaliya hada laakiin waxaanu ku dhex tusi doonaa telefishinka haddii la ahayd Somali Bridge oo aad halkan wareysiga aanu ku siinano waxay kaloo kaga duwan tahay quality-ga anigu waxaan aaminsanahay guryo waa la dhisi karaa magac waa la create gareyn karaa laakiin waxaan in impact-ga hadda uu yeelan doono inuu noqon doono wax aad iyo aad quality u leh Islii oo kale ayaan hadda guri ka dhameynanaa qalabkiisa dhammaantii waxaan ka keenay waddanka Masar waan u xulanay quality waxa jira marka waxaan is leenahay la xijeclo badan baa naga haysa customerka waxaan rabnaa inay noqdaan quality waa number 1 oo waxyaalaha nala kula kuweyshin gareyn doona haddii lahaa idmo areaooyinka aan wax ku doorano waa area quality fiican leh oo location-ku yahay location bestia waxaan u wada dhownahay meelo brana haddii aan lahayd Westgate haddii aan lahayd Girigiri haddii aan lahayd Heart of Backland marka Nuroy runtii maaha waxaan hadal kaliya ku soo bandhigi karo laakiin waxaan rajeynayaa maalin ka mid ah inaynu dhex tagi doono waa tahay waxaan rajeynayaa su'aashaasna in ay macaamiishu aad iyo aad ay uga bogteen waxaa kaloo laga yaabaa inay maskaxdooda ka guuxayso Viewpoint Homes guryaha ama dhismayaashama waxay ugu tala gashay deegaan ahaan oo kaliyaata mise ilaa ganacsatadu ay ku soo dhiiran karaan oo asa commercial ahaan oo kale waa loo isticmaali karaa waa su'aal iyaduna aad iyo aad u qiimo badan waxaan jeclahay inaan ku iftiimiyo wareysigan dhowr arrimood oo dadka laga yaabo in xoogaa yar confusion uu kaga jiro dhexdooda sax marka koobaad guryaha anagu waxaan ugu talagalay deegaan ahaan inta badan waa biildimo high rise sax high rise kaasi marka dadka qayb kamid ah ayaa waxay kaga dhex faa'iideysteen inay qayb kamid ah ay ka dhigaan Airbnb waxyaalaha loo yaqaano for example qofaa wuxuu gadanayaa guri 2 qol ah isagu ma rabo inuu dego wuxuu sameynayaa 2 qol ayuu markii uu gato waa goglayaa furniture-kii oo dhan buu soo dhigayaa sidii hotelkii oo kale u kireynaya annagaana kireynayna isaga shaqadiisa maaha annaga ayaa mas'uuliyadda kirada iyo wax oo dhan annaga gacanteeda ku haynayna qofkaasi meeshii for example $600 lagu kireysan lahaa 2 qol $1,200 ayuu bil walba ka helayaa waxaan garanayaa dad ilaa iyo 5 guri hadda maraya oo sidaas oo kale u kireeya oo bishii $7,000 lacag ku xisaabtama la kala dheere
orodna maaha ayay Soomaalidu tiraahdaa marka sidoo kale hoos waxaa laga helaa inta badan dukaamadii ayaguna waa commercial oo dadkii dukaamada waa ka gadnaa ayaguna waa kiristaan oo waxaa faniya labada qolo islii ku yaala iyo dukaanka hoose oo reerka raashinka iyo waxyaalaha looga gadgado kirada waa isku qaymo marka $400 ay kira ku helayaan dukaan yar oo 4 mitir lacagta laga bixiyana hadda ma badne oo wax maalin lagu soo qadayeen oran karna faa'iido badan ka sameyn karaan marka Viewpoint Homes runtii anigu qurba joog baan ahay Mareykanka ayaan ilaa iyo anoo yar joogay Kenya hadda last 7 years baan ku noolahay waan garanayaa xanuunka dadka qurbaha jooga haya waan ogahay dad badan baa guuri waayo jeclaa inay guuraan laakiin waxaan rabnaa inaan uga dhigno si fudud inay dadkii lacagtii qurbaha laga sameyn waayay inay Afrika jirtaan Afrika ka sameeyaan iyadoo ay dareemeyn si wanaagsan hadda ka horna waraysi laga qaadiyaa waxa ku yiri su'aal baa la weydiiyay waxa la dadku sidee guryaha u gataan ma lacag badan baa jeebkooda ku jirta oo iyagoo lacagaha diyaarsaday bay guryaha u gataan maya waxaan dadku guryaha ayuutay ku gataan waxaan xasuustaa maamo 22 sano wadankan joogtay si wanaagsan oo 22 sano Afrika biil u dirisay oo aan weligeed $20,000 sanadkii u soo harin ayaa maalin noo timid markaasaan u sharaxnay Minneapolis oo aqal qaalinay waxay tiri eedooyin lacag $10,000 hadda haystaa si wanaagsan hadda $10,000 bixiyo seebo guriga igu u suurta gelinaya waxaan yiri waxa ugu horeeya horta $10,000 dhig guriga gadatay waxa $142,000 si wanaagsan 3 sano ka bacdi lacagtii way dhamaysay maamadii dib bay noo soo wacday waxay tiri waxaan ka fikiray 20 sano hore wixii aan qaban jiray haddaan 3 sano gudahood $140,000 lacaga aan guri ku gatay sanad 20 sano iga soo dhuntay waad iga daba geyseen marka kamanigu waa mahadsan yahay hadda waxay noqotay iyada kamaniga shahaado siisay meesha anagu siin lahayn waxay taagan tahay magaalada ma gadan lahaaba waa hagaag waxaan rajaynayaa halkaasina in uu Cabdiqaadir iftiimiyay waxa kaloo laga yaabaa oo aniga macaamiisha waan isweydiinaynaa nidaamka ama paymentiga sida ay ku Viewpoint Homes ay ku samayso ma financing baa ku samaysaa ma hafta nidaamkan u naqaanay bay ku samaysaa mise lacagtii oo cash weeyaan inuu macaamilku wada shubo waa su'aal kale ayada aad iyo aad qiimo u leh waxaan ku sameynaa horta anagu bangi ma isticmaalo si wanaagsan anagoo ka caraanana waxyaalaha loo yaqaan interestiga oo dadkeena meelahan ku wareeriyay sababtoo ah guryahani $1 oo dheeriya ma saarna lacagtii lagu ballamay in lagu kala gato haddii $40,000 ahayd $40,000 laguma darayo waa waxyaalaha ay runtii yaabka ku leedahay Kenya $40,000 buu joogayaa lacagtana waxay ku bixinayaan paymentiga ugu horeeya haddii uu haysto 10,000 waa iska bixinaya hadduu 5 haysto waa iska bixinaya laakiin xuja daba taalo qofka waxa la rabaa inuu yahay qof dhiiran mas'uuliyadda qaadan kara markii uu kun soo galo iyo markuu 10 haystaba aan naga baqayline markii uu ladan yahayna noo soo badiya markay ka taalana kamarigu waa u naxariisanaya waa la saayirayaa wuxuu leeyahay halaga bishaan iyo labadan wax ururso wali waxaanu siinaa 6 months payment plan for example maanta wuxuu bixiyay $5,000 waxaanu siinaa 6 bilood waayo dadkeena Soomaaliyeed nuuroy siyaalaha ay u nool yihiin uma nool dadka kale dadkeena waa dad firfircoon aad iyo aad hadii shaqo loo diro inta badan ka soo bixi og marka taski waa la siiyaa waxa la dhahaa taskigaas qaata ka soo baxa soo sameeya marka sidaas baan ula macaamilaa macaamiisheena sharafta badan waan u mahadcelinayaa runtii waa tahay waxaan rajaynayaa macaamiisheena qaar badan oo kamid ah inay haatan ku soo dhiiranayaan in ay guriga gataan Cabdiqaadirow aniga iyo macaamiisha tigir baan noo go'an haye waxaan rabnaa inaad naga dejisid siyaara laga kaxaysid inaad naga dejisid Kenya magaalada Nairobi Jomo Kenyatta International Airport oo waliba la sii geysid xaafadda quruxda badneed ee Backland ama South Sea oo nagu soo dalxiisisid si wanaagsan dhismayaasha quruxda badnaa ee kalaha ee dhisaynada kala gedisan aniga iyo macaamiishaba ina Maria
واتهاي أشقرار أنا جي مع مشبة وأنا لا دعني اسمي عاش قرح ذبضن له أي في بوينت هومس أي مع مشة ذو بتلقى شيء وحن لا يحي في بوينت هومس كلية تمي يبنيسو عبارة منه يونيديا كليات أي وحي يبنيس هالدجاج مردن أو اسكو قفلان عجيب هدي أنا هروج سيسعنا معاملكي وكو قنعي قولي جيبنو كي يبني وحلاقي يا بني سويدينيو سيدا أيو معامله كو هلي كرا صبر لاقدي أما ملكيدي أما لها شيء قرية ما دام أو كان يأي تهاي إن ودر كله وكل الشروع دي سي النظام كيس يسوونه وطن واو أدب ما ستة thank you so much سؤالها عادي ويدينسد runtii waa su'aalo qof kasta oo Nairobi hami kaga jiro ka guuxayo haddii aan imaado lahaanshaha dhulka wadanka Kenya dadku waxa isweydiiyaan inta badan su'aasha la weydiiyo waxa weeyaan waxa maqlay wadanka Kenya 99 years baa la siisiyaa oo liisa laakiin waxaan rabaa inaan caawa uga faa'iideysto faahfaahiyo dhulku haddii uu yahay dhul liisa laba micno kala yeeshaa for example anigu hadda dhul leeyahay oo adiga aan ka kaliyo 20 sano 20 sano haddii uusan renewable ahayn oo dhulka la soo cusboonaysiinaynin 20 sano ayuu ku egyahay heshiiskeeno laakiin dhulku hadduu yahay dhul lagu heshiiyey in forever oo liiska ahaado oo liiska laga hadlayaan uu yahay midka sharciyan wadanka Kenya Ingiriiska gumeystay wadamada Uganda Tanzania Kenya dhamaantood dhulku sida Soomaaliya oo kale ma ahane dhulku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo 99 years lease micnaheedu waxa weeyaan markii 99 years ku dhamaato dib baa loogu noqonayaa dawladda hoose waxaana la soo sameeyaa canshuur ayaa la soo bixinayaa canshuurtaas haddana waxay ka soo bilaamaysaa sanadada gadaal oo 54 sano bay hadda yaamaha dambe ka dhigeen markay dhamaato haddana waa lagu noqonayaa waa la soo cusboonaysiinayaa tad minis waxa weeyaan guriga horta forever qofka isaga lahaan doona taas waa in la fahmaa midda qofka guriga baan ka gadnay waa ku qancay payment balankii 3 years aan noqdo horta nuuro inta badan guryaha Backland waxay socdaan 3 sano guryaha xaafadda Islii iyo Southsea inta badan 2 sano socdaan waxaana keenaya guryaha cabirkooda ka weyn guryaha dhismahooda aad looga taxadarayo oo maaragtay finishingkooda uu runtii Backland bay aad iyo aad maaragtay faraha loogu yareystaayo hadii dhulkaaba ka weyn dhulka waxa la yiraahdaa half acre inuu noqdo mararka qaarkood meeshii Islii uu ka yahay koto dadka Kenya iyo way fahmayaan ama boqol hal laga dhaho ama hal dhaho 200 mitir oo isku wareega marka sabar logooyinka horta dhulkan lawyer buu leeyahay si wanaagsan qof kasta waxaan garanti u siinanaa 100% inaanu ka gadi doono dhul sharciyadiisu fadhido dhul leh damaanad dhul leh lawyerin dhul everything aanu ka taxadirnay waa jecelahay dadka iyaga waa jecelahay anu reer Minneapolis baan reer Seattle baan reer Mareykan baan maalin walba waxaan rabaa inaan wadanka ku noolaado iyaga la joogo waa jecelahay waxaan rabnaa inaanu caawino dadkeena laakiin ma rabno inaanu haam garayno ama dib aanu geysano sidaas darteed guryahan waxay leeyihiin lawyer bay leeyihiin markii qofku uu dhameeyo paymentiga oo guriga furiisa aanu siino waraaqdiisii letter offerkii iyo agreementigii sale agreementigii hore lawyerkaaba already sii haya waa u geenanaa waxa loo xareynayaa waraaqda loo yaqaan sabar loodagada ama sub titleka oo waraaqda maaragtay mulkiyadda guriga uu leeyahay boorsadiisa uu ku ridanayo caruurtiisu ay ka dhaxlayso hanti isagu uu weliga yeelanayana ay tahay marka taasi waa shaqada company-ga sidoo kale kirada annaga ayaa company-gu wuxuu lahaan doonaa management company maaragtay oo service-ka company-ga annaga gacanta ku hayn doono kirada annaga mas'uul ka noqon doono waa hawlwelin gurigaaga lacagta kuugu soo dhacdo bisha maalintii 2 tahay iyo 3 tahana akoonkaaga lacag kala baxa waa hagaag fariinta ugu dambaysa maxay noqonaysaa aan wax yar ka hormarsado waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto guryaha noocyada ay yihiin oo aan hayno si wanaagsan Islii haddii la yimaado waxaan haynaa guriga horta mar waa dhamaaday isaga falilah alxamdu hadda la degi doonaa wixii August loo gaaro cidii kala doonaysa oo halka naga daawanaysa shashada kameriga numberka kameriga insha Allah Nairobi waa soo saari doonaa insha Allah kirada haddii la hayno hakala soo aadin u shirika gaagaab ayuu ku yaalaa guri aad iyo aad u fiican
oo floorka dhan ay degan yihiin laba reer keliya markii two bedroomkana laakiin saddex baa degan marka waa guri aad iyo aad ugu najeeci doontaan haddaan usoo noqdo islii marka sumayo ground floor marasa sumayo waxay ka kooban tahay 2 qol 3 qol iyo 4 qol oo DSQ leh waa markii koobaad oo DSQ ama qolka shaqaalaha lagu soo kordhiyay xaafadda islii waa gartay marka waxaan leeyahay square meter aad iyo aad u weyn DSQ leh labada dhinacba ay balkoona ka saaran yihiin aniga haddii xataa guri iga dambeeyo waxaan sameeyaa setback wax la yiraahdo sameeyaa gadaal baan uga baxaa si loo helo lighting loo helo labada guri u dhaxeeya si guriga waayade inaad jacayl dadka ay haya oo dadkii aan rabaa oo moogta ma hay ganacsade kaliya raba dadka lafahooda inuu qorraxaystee waxaan ay qof dadkii dareen ugu jiro ma raba in la soo inkaaro la soo habaaro marka waxyaalaha viewpoint kamidida kaga duwan tahay kamid tahay caring-kayga aad iyo aad buu dadka ugu xiran yahay inaan wax soo kordhinaano go'aankayagu yahay second backla markii la yimaado waxaanu haynaa 5 qol oo duplex waxa la yiraahdaa guryaha kor iyo hooska sax marka hadda banaanadan ku yaalaa waa la yaqaanayo tan house baa la yiraahdaa janajada dhexda ku leeyihiin qayb kor iyo qayb hoose weeye laakiin kuwan waa apartment laakiin waa 5 qol iyo qolka shaqaalaha fadhi dhexe oo family la yiraahdo living room bi sidoo kale leeyihiin iyo kii hoose haddii caruurtaadu ay hoos joogaan adiga oday wax iskaga sheekaysan ka fadhiga dhexe ama caruurta kor loo dirayaa martida lagu la sheekaysanayaa hoos iyo qolka shaqaalaha waa 6 qol 4 qol oo qolka shaqaalaha wata 2 qol oo qolka shaqaalaha wata 3 qol oo qolka shaqaalaha wata iyo sidoo kale sitaara 1 iyadu waxay ka kooban tahay 4 qol oo caadi iyo 4 qol oo kor iyo hoos 2 qol oo duplex caadi oo qolka shaqaalaha 3 qol walow 3 bedroomka 2 bedroomka aan u maleynayo inay gabagaba yihiin haddii aysan wada dhammaanin sitaara ayaa hadda calawanaynaysa 50% waa la iibiyey hadda ayay insha Allah barkin wax la sameeyaa planning-kii iyo maaragtay iyo footing-kii waxa la yiraahdo haddii la haydmo Southsea ayaa soo socota Soomaalidu aad iyo aad u jeceshahay waliba u dhaxaysa Dr. Xasan oo la wada yaqaano iyo Masjid Nuur iyo suuqii qudaarta laga gadanayay inta loo baahnaa shidaal hadda u baahantana gaari transportation ba ka soo horjeeda ayadana waxay ka kooban tahay 2 qol iyo qolka shaqaalaha 3 qol iyo qolka shaqaalaha iyo 4 qol iyo qolka shaqaalaha Kilimani oo 1 bedroom iyo 2 bedroom oo loogu talagalay Airbnb dhamaantiis lacagtiisuna ay tahay jeebka gacanta gali waxaan micno lahayn oo insha Allah waynu sheegi doonaa marka samkan la soo xiriiraan oo waliba 3 years payment plan la siinayo oo waliba ay ka sameyn doonaan markii ay googlaan 1200 iyo 1300 habeenkii waxa lagu socdaa $60 guryaha Airbnb da oo Kilimani ku yaala marka macmil ku fakar mustaqbalka u fakar sida aad uga bixi lahayd inaad dependent ku ahaatid shaqo 5 to 9 oo subaxdii marka aad soo kacdid qofku uu 3 bilood vacation qaadan karin sax oo sanadkii 12 bilood 365 ka inuu shaqeeyo ay khasab tahay laakiin waxaan rabnaa inaad ka fakartid next 5 years 6 years how many units baad ku lahaan doontaa kilo qofka kaliya qofka taajirka ah oo qofka properties leh qof aan samayn karin male qof waxaan uga bilownay $1 kaliya bishii awooda inuu dhigo ayaanu uga soo bilownay inaan $1 ka qaadno waxaanu gaarsiinay inuu guriga pay off ka dhigo waxaanu gaarsiinay inuu qofkii $1 samayn jiray inta hamadiisa siyaaday inuu baxay oo shaqo kala raadiyay oo yiri 10 sano dhammaan san doonaay 3 sano waa isgubaya oo qofkii hurdadii ka kacay oo hamadii soo gashay marka waxaanu inuu haynaa riyo runtii aan cid kale inoo rumayn karin waxaan idinka codsanayaa inaad taageertaan nala shaqeysaan guryaha gadataan waxa weeyaan Seattle Washington base bi aniga ita marba waa imaad haddana representative waxa noo ahaan doonta insha Allah Bakri Nuure Maxamed Kalane oo numberkeeda aan shaashada ku soo qori doono marka haddii aan u soo noqdo su'aashii guntiga gabagabada dadka waa rarayna waa si wanaagsan waxaynu geenaynaa guri qurux badan oo la yiraahdo Kenya runtiina mustaqbalkooda waxba iska bedeli doona ifan waxaanu aragnay dad baa is yiraahdaa waxa Soomaaliya guri loo gadi waayay waxa wadankii Soomaalidu ma aha dad wadaniyiina laakiin waxaan rabaa inaan u sheego hooyada halkan ku nool oo $2,000 ku degan 3 qol kirada ama 2,500 siyal hadda waa qaalibay noqotay waagi hore waxaan ku deganaa jirnay 400 iyo 500 baa ku deganaa jirnay back the days qaalibay noqotay Nairobi
dad baa waxay yiraahdaan oo kale guryaha Mareykanka laga qaato waxaan rabaa inaan wax yar oo sameeyo tusaaleyna $500,000 ayaa lagu gataa guryaha inta ku yaala Mareykanka iyo $600,000 kiradoodu waa $3,000 soddon sano oo lacag oo kula socono sana dadku waa bixinayaan laakiin waxaan rabaa inaan dadka tusaaleeyo laba qol oo $45,000 aad kala baxday oo isli ku yaala ayaa waxa lagu kireystaa $450 okay haddii la soo noqdo saddexda qol waxa lagu kireystaa $560 meelahaas lagu kireystaa isli Backland oo lagala baxay 100,000 ilaa 150,000 ee guryo u dhaxeeya ilaa 200 ba iska dhacaa hadii duplexka lagu daro oo negotiation-keeda wadata bishii waxa la kireeyaa $1,500 that means laba guri oo laga yaabo inaad ku heshay 170 iyo 170 aad ku gadatay oo 3 sano 4 sano gudahooda aad gadatay baa lacagtii $600,000 ahayd oo Mareykanka guriga aad kala baxday haddana oo appreciation uu jiro oo guriga Mareykanka marka $600,000 ku gadatid 30 sano lagu siiyay lacaga waxaad bixinaysaa dheeriya double buu noqon doonaa 30 sano ka bacdi waxaad bixisay 1.2 waad bixisay guriga Mareykanka laakiin kan interest kuma socdo marka waxaanu doonaynaa inaanu labada qod gadano saddexda qol gadano labada qol gadano si dadku ay kirooyin u helaan iyagoo Mareykanka jooga adoo New York jooga Nairobi guri ka soo kireysan kartaa marka waxay kaga fiican tahay Soomaaliya anoo wadaniya oo dadkayga jecel dalkayga laakiin kirada kala badan guryaha Nairobi kira fiican baa lagu kireystaa Soomaaliya xoogaa kirada hooseysa marka sidaasaan leeyahay marka Nuur haye waa tahay saaxiibayaal waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii wareysigeena Cabdiqaadir aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waxaan rajaynayaa macaamiisheenu inay aad iyo aad uga bogteen waxa laga yaabaa macaamiisheena qaar badan oo kamid ah inay caawaba tigirku u gaan yahay waxaan leenahay nasiib wanaagsan waxaan rajaynaynaa inaad ku damaashaadaan oo aad la ashqaraari doontaan View Points Homes guryaha iyo dhismayaasha casriga ah ay ugu tala gashay macaamiisheeda intaas waxa sii dheer daryeelka macaamiisha oon iyaguna meesha ka maqnaynin sida daraadeed waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibayaal like-ta iyo comment-iga waa xaqiina share-tana nagu taageer aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaad daawateen muuqaalkeenan